وزيرك وزارة مالية Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta daahfuray mashruuca shaqo abuurka iyo adeega hawlaha guud taasi oo ay ka soo qayb galeen qaar kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax baratay wasiirka ayaa sheegay in mashruucani uu anfici doono bulshada Soomaaliyeed سيدراديد بقولada oo dhan aan ku joogan sida filayo now self support marka waxa weeye lacag loogu talagalay shaqo abuur iyo haba iska yaraatay in dalka dhismihiisa la bilaabo dib u dhiska dalka ayay bilow ka tahay lacagta waa iska yaraatay jidka la hayaa waxa jidkii dib u dhiska weeye waxa og tihiin sanadkii dhaafay xoogaa self support iyo lacag self support oo gobolada qaar gaadhay hadaan ay wada gaadhin wadooyin baa lagu dhisay xafiisyo ayaa lagu dhisay ama lagu hagaajin mashruucan ayaa waxa ay ka kaashtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Saciid Maxamed Cartan Faalon Bulsho TV magaalada Muqdisho.